aad hamigaaga u gaartid marka ugu horeyso adigu qof noocee ah ayaa tahay. Hamiga in la gaaro waxa ay ku xiran tahay shakhsiyadaada. maxaa kaa hortaagan hamigaaga? maxaa kaa hortaagan inaad gaarto wax aad ku haweyn tahay inaad gaarto? waxaa jeceshahay ilaa yaraantaadii wix aad jeclayd inaad gaarto, maxaa kaa hortaagan? waxaa u baahan tahay marka naftaada inaad barato. wax walbana waxay ka bilaabataa naftaada iyo waxay ka bilaabataa qaab fikirkaaga, qaabka aad u fikirto ayay ka bilaabataa. saa daraaddeed adiga horta kuma tahay? ma waxaa tahay qof caajis badan, mise waxaa tahay qof dib u dhigasho badan, arrin walba iyo wax walba uu qabanayo dib u dhig? mise waxaa tahay qof xishood badan, mise waxaa tahay qof cabsi badan? marka waa inaad nafsadaada aad barataa. naftaada markii aad barato cilada ay leedahayna aad ogaato, markaas ayaad xallin kartaa. waayo waxaa laga yaabaa waxaad jeclayd inaad samayn weydo arrimihii aan soo sheegay daraaddeed. waxaad jeclayd inaad gaari weydo ama aad samayn weydo ay kaa hor istaageen. tusaale ahaan inaad caajisoolo tahay, caajis badan tahay, amaba inay kaa hor istaagtay inaad tahay qof dib u dhigasho badan oo arrin walba oo dib u dhigto uu yiraahdo macnaha maanta ma samaynayo berri. hawsha kugu taalla marka horaa loo qabtaa. maanta wixii kuu yaallo dib ha u dhiganin. berrina mar walba ma dhammaanayso, mamarsiyaduna ma joogsanayso. haddii aad tiraahdo mar walba waxaa samaynaa berri ma dhammaanayso ilaa aad ka dhimato. haddii aad tahay marka qof xishood badan oo ka xishooda, tusaale ahaan qof baa wuxuu rabaa inuu sameeyo inuu miisaanka iska dhimo. marka taas waxay tusay marka inuu ordo, inuu banaanku baxo, uu ordo subax walba uu soo ordo, laakiin wuu ka xishoonaa dadka inay arkaan. waxaa kaloo ka mid a qof baa raba inuu wax barto, amaba laga yaaba inaad rabtid inaad baratid luuqadda ingiliishka oo kale tusaale. marka waa inaad tagtaa marka iskuulka soo qortaa oo iska diiwaangelisaa. haddii marka iskuulka aadan iska diiwaangelin ma baran kartid. saa daraaddeed iskuulka inaad tagto iska soo qortona waad ka xishoonay oo waxaad leedahay saaxiibada kale ayaa igu arkaayo. waad ka xishootay oo waxa ugu xishoonaya dadka kaleeto. taana waxay ku leeyihiin bal fiiri xilliga uu baranayo luuqadda. xishood marka ma laha. ama qof weynaa tahay waxaad ka xishootay waxbarashada in lagu yiraahdo xilliga uu baranayo iyo da-da uu ku baranayo bal fiiri. marka waxaasoo dhan marka waa caqabadaha hortaagan ee aad ka gudbi la'dahay. tusaale ahaan waxaa kaloo ka mid a cabsi. qof ay cabsi ku furan tahay. hadalladiisa waxaa ka mid a inuu yiraahdo waxaan haddii aan sameeyo waxaan ka cabsanaa inay saan iyo saan igu dhacdo. haddaan waxaan sameeyo waxaan ka cabsanaa. marka hadalkaas uu leeyahay ayuu maskaxda gelinaa, maskaxda ayuu sheegaa, maskaxdana halkaas ayuu kaga dhegaysaa. kadibna wuxuu noqonaa qof ka cabsado wuxuu u samayn lahaa horumarkii uu rabayna ma gaari karo. marka way fudud tahay haddii aad rabto ama aad ku daashay inaad hamigaaga fuliso, ama waxa aad jeceshahay aad gaarto, ama waxaad jeceshahay inaad barato ama aad samayso ay sababaha aan soo sheegay ay tahay, xalkeedu wuu fudud yahay. waa inaad marka hore caajiska amaba cabsida ama xishoodka ama dib u dhigashada wixii ku haayo inaad la dagaalantaa marka hore intaadan wax kale aadan bilaabin. la dagaalan sidii aad meesha uga saari lahayd, aad uga masixi lahayd falkeeda gal. markii aad ka masaxdo markaas ayaa waxaa u soo jeesan kartaa wixii aad rabtay inaad fuliso. waa muhiim maanta, waana loo badan yahay. in badan arka dhalinyarada in badan waxay u badan yihiin markaa fiiriyay waa caajis. qofku wuxuu iska jecel yahay inuu comfort zone waxa la yidhaha raaxada inuu isaga jiro. tusaale ahaan isagoo sariirtiisa iska jiifo inuu mobilkiisa uu maanta oo dhan u dabagidiyo. waxaa laga yaabaa inuu ku qaato saacado aad u badan inuu fiirsado oo keliya muuqaalo uu waxba usa ka faa'iideynin sariirtiisa ama kursigiisa ama meesha uu joogo markaasoo iska joogo iska fiirsanayo. haddii wax uu rabo inuu sameeyana waxaa u kulantay wuxuu leeyahay maanta ma samayn karo, berri ayaa samaynaa. waayo maanta madax i xanuunayo, maanta saaxiib baa ii yimid ayagaa la joogaa, marka berri ayaa samaynaa. marka dib ayuu u dhiganaa wax walba, wuuna caajis badanya. inta badan dhalinyarada halkaasaa ku arka. xishood kale ma jiro. haddii xishood badan tahay oo aad ka xishoonaysid keliya hal mid ka fiiri. waxaan aad ka xishoonayso horta diiniyan ma bannaan yihiin inaad samaysid? waxbaha ka xishoon. haddii ay diintu ay ku bannaanta oo ilaahay subxaana watacaala uu raalli ka yahay oo wax diintu ku bannaan ay tahay ka xishoonin. maskaxdana waxaa gelisaa kuwii xumaanta samaynayay ayaa maanta xishoonin oo dadka soo hor istaagan oo waxyaabo dadka ay la yaabaan sameeyo oo maskaxdaada aan geli karin oo muuqaalka xataa aadan sii dhammaystiran karin. aad leedahay war kuwaan ma xishoonayan miyaa maxay tahay? aad ku fikiraysid kuwaas ayaa dadka hortaaganan xishoonin. adigi oo wanaag wado oo wax wanaag samaynayo sidee baad u xishoonay? xishoodka marka haddii ku soo galo taas xasuuso. qof baa arkay inuu
suuq tago alaab uu soo adeegto ama uu sameeyo ka xishoonayo waxyaabo aad basiid u ah qof baa ka xishoonayo inuu shaqeeyo shaqo xalaal ah inuu shaqaysto ka xishoonayo tusaale ahaan jaamacaduu ka baxay laakiin inuu ka shaqeeyo maqaayad ama meel kale uu adeega ama kabalyeeri uu noqdo cuntada uu soo dhiibo uu ka xishoodo qofkaasoo kale marka ma gaari kara marka hamigii uu rabo inuu ma gaari karo waxaa ka hortaagan xishoodkaasna aduunan iska bixinin ma laga yaabo inuu marna meel uu gaaro waayo xishoodka ayaa dib u dhigaayo marka mar walba waxaa xasuusataa xishoodku hadduu ku soo galo arrin aad ka xishooto xasuuso kuwa xumaanta samaynayo ee aad aragtid maalin walba ee aanan xishoonin xumaanta ka xishoon waaye sidaad adiga wanaaga uga xishoone taas waa mid cabsida waa paranoia qofkuu noqonaa cabsi waxaa laga yaabaa waxaanba jirin uu ka cabsoodo haddii aan waxaan sameeyo waxaana igu dhacayo tusaale ahaan haddii aan jiimka tago oo aan biraha qaado waxaan ka cabsanaa inuu dhabarka ijabo cabsi aan jirin ayuu isku furay dhabarka ijabaayo gacanta ijabayso haddii aan ordasaana ay u dhacayso haddii aan waxaan sameyn qofka marka cabsi aa ku fura qalbigiisa isagana wuxuu u baahanyaa marka inuu cabsidaas uu iska saaro uu ku fikiro u fiiriyo dadka sameynaya haddii kuwaas ay sameeyeen adna waa sameyn kartaa wixii kugu dhacaayana sariirta xataa kuugu imaanaya marna ma ku seegayaan marka cabsida ayaduna waxay ka hor istaagaya qofka inuu gaaro hamigiisa dib ha u dhigan maanta bilaaw waxa aad jeceshahay inaad bilowdo bilow maanta si aad biri ugu raaxaysato bilow maanta si aad biri ugu raaxaysato halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkayga maanta nabadgelyo